السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتين دمانتين أخيارته كحرين بالعسنديلي meel baa joogtaan iyo si walba aad noo daawanaysaan xaggayga waafiid adigana waxa ay ku tahay ku rajeynayaa haddii aan isku soo laabanay inagoo nabad qabno alxamdulillaah caawa waa muuqaal kale somehow waa lugeynayaa somehow bajaajaa raacaya marka aan isla soconno waxaan rabaa magaalada inaan galo arrin bulshada dib loo soo xusuusiyay ayaan rabaa caawa inaan muuqaal ka soo sameeyo marka aan isla soconno xoogaa ayaan lugeyn doonaa kadibna waxaan gaari doonaa laamiga weyn halkaas oo aan ka raaci doono bajaaj marka aan isla soconno wal magaalada idinka rabaa inaan idin kala dhaxbaxo aan isla soconno taaganahay laamiga weyn waxaan sugayaa bajaaj haddii aan helo sii raaci doonaa waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakatu shacab daabi warna hawsheeda waxbaan iska duubay warsaab yaa haa waxbaan duubay warsaab ma socotaa walaalkaa ii celi waa kaa lambarkii shay saaxib waxaan kuu diray سامي لا يعلم
صعب أكون دريس في أقرأ ما سنتها بدهم بس ما يسوي بس يا كيلو بس انت وين مرك شين صومال مركي لا قديو ما وسيجي طب انا يقول سيجي حوال حقي يقول سيجي هذاك يقول مجي درال نقيا صومال بدل بنسون صومالي شين صومالي صومال ما استعمالنا هاي لو صوت درام يا شين صومال بدل مركه صومالي ما استعمالنا ايوه لعيت بدلان بدل بنسون كل ما معي ما بره هاي هذا انا لو سوى ضايع انا افاق يعني انا ودك العيش يا ساعة عقد بيان روح عقد بي شن صومالي يجي بيسار روح شن صومالي هو تعال صومالي ها يا وكنتن نيو بالعسن ديلي الله بالعسن ديلي يوتيوب واي والله ها بالعسن ديلي الله يا انت دولت تمام وعسوب يعني marka subscribe badan loo raadinayo adii la firkaa subscribe saar هذا اليوتيوب صح مع horta الموضوع waa iska caadi iska waa moogtahay iska xasaasi ma aha waaga anaga hadda shin Soomaaliya naga dhacay horta meeqo ku xirmay konta kun maray mise ka hooseey halka door ha halka door afarta kun maray ha hada marka point 3 caaw hada u bedelno waxay noqonaysaa waa 12 kun soo يا 12 kun shin Soomaali يا سعد يا ها ما يعاني هذا رواعنا نقضه أنا ضوي ساعة معنا بالكم كاميرا دوي ساعة يا وليس ودي بدل ليس ودي ساعة قيمة صح هذا ما هاي ما ويديس الله ها قول والله لا سوري يوسف ميجا ثاني ما صنت حسن ما شاء الله احمر كرا سما لو قول مع الخريدي مصدر خريدي مصدر خريدي سهل موت شنو صوماليا وتاع Soomaaliya ku diraya isdoorshin Soomaal meeqan noqonaysa ishin may waagi shin Soomaali shaqeynay isdoolarka meeqo kale aha qiyaasta ya meeshaan joognaada afarta kun oo meelaha soo ah halka door Soomaa 40 kun ya أفرتنا مركي قدام بس عيش كنا وعيني بقى
قاعدين في الكيت هذا أيها سيدي shilinka la waayay maxaa dadka noloshooda iska bedelay noloshiisa hadda waxa weeye markaan mar walba qofka ilaahay baa dadka risaaqa awalna risaqi jiray hadda laftirkeedana waxa weeye mar walba haddii wax isbeddel la helo ama lacag u beddelmato ama sideeda ay ku socoto mar walba farad baa rabi furaya ma garatay qofkuna hadduu ilaahay ku kalsoon yahay waxba waayi mahayo dadkuna bulshaduna waxa weeye lacagtii Soomaaliga ahayd baa la fadhabar u ahayd markaana waxa weeye hadda waxa weeye hadda jawiga hadda cusub baa waxa weeyaan bulshada la soconaysa hadda meesha maxaa ku iibisaaday hadda alaab baan ku iibiyaa meeshan lows baan ku gadaa biscuit baan ku gadaa xanjaan ku gadaa noloshayda waxa weeye waxba yaan lacag meel dhigane jeebku ii buuxin laakiin noloshayda saddexda goor iyo waxa weeyaan yoonkayga waa iska helaa ayaad marka lowska iyo xanjada iyo nacnacsan la socono waa waxyaabo ma taqaanaa markii la damco in la dil lacagta danabaysan waa 5 senti wixii ka yar marka lacagta danabaysan oo kale inaad wax ku iibsato iyo inaad shilin hesho aad wax ku iibsato kee door bidi lahayd shilinka ii badnaan la waagi aan Soomaaliga iyo dollarka ku gadan jiray wax cunno aan cuno iyo waxaan maalintii yoonkayga adigu iyo wixii masaariif iyo wixii xaafada adigu wax ka dheeraad oo dhigaala heli jiray moogta laakiin hadda waxa weeye hadda waxa weeyaan waa iska jam ku aadi weey warraba maxaa la hayaa السلام عليكم ساتا برنامج دومناي هاي يا يعني sida hadda aan la socono annaga waxaan isticmaalaa lacag oo mobile ku jirto Soomaha oo loo yaqaan lacag danabaysan shilin hadii la heli lahaa ka waran maxaa nolosha iska bedel lahaa ما شاء الله وهم بلييننا إن إلهي كم عذابه الشلن كنا لو سوعليو مدحوينها إن الدني وكم هالسنة هاي الشرف له وحس له وإسلام ماله وكود دعوين الشعب وكود دعوين أرضه وكود دعويس دتكي مساكين تأهاي وتوكسناي وكم كشلنا للصين لهاي أستحرمي وما أنت إلهي كم عذابه مركز تراها العقد الطور ما أرتاي هداد دونت أتكوهسري هداد دونت أدب أحين وأسكو وريرني صدقة بحسنيني ما شاء الله الدنيا وإلهي خير أكسي ددال قشاوت وأنقوهم بلييننا أنه الشعب كادي أنه ما أرتاي هويوين كادي أنه ما أرتاي مسؤولين تشارك دورتي خير بدن إلهي أكسي لعك سومالي أنك أنتي نغتكتي waan wareernay waan rafaadnay waan wareernay aad iyo aad u wareernay lacag Soomaali waa jecelnahay aad iyo aad u jecelnahay waxa waaye lacag badan aan noo dhigmi jirtay dollarka adoo tahay markuu bixaynin baxday rabto markii ku bixi ways adiga ilmahaada markaas waa baahana gaajo silac rafaad waxaad arki qof sheeb oo xoogo yar haastay xoogo bixi ways habeenkaas waa ku seexanay insha Allah marka waxa waaye hadda alxamdulillah waxa waaye wixii yar wixii weyn isdaba yaalaan Allah ay barakeena insha Allah islaamnimadana waxay ku jirtaa in la shaqeysto xalaal insha Allah hadii Ilaahay marka lacagta danabaysan iyo shilin in la helo kee door bidi lahayd ma anaga shilinka ku farxnay maanta waa farxay khadkan ka arkay aadam aan ku farxay ma sha Allah haddaan taagnaan lahay meesha laga hadlaayo oo macnaha lacagta laga fasaxay alalaas oo dhufan lahay alalaas waa u macsharayn lahay macnaha alalaas weyn oo dhufan lahay cusboonaad waa dira waxa waaye anaga shacabka Puntland oo maanta Ilaahay kuma cadaado shacabka Puntland oo aad iyo aad ma aragtay oo ma aragtay intaas oo sano degneen Puntland oo ku baraysanay anaga dadkan waxaan nahay deegaanka aan u dhalanin oo maanta soo dhaweyn sharaf la aan ku helnay ma sha Allah waxaan balyeynayna lacagtayna Soomaalida ahna waa jecelnahay waxa waa dadku way kala waday aad iyo aad
waxaan arkay aniga shaqo aan ka shaqeey oo lacag intaan ka shaqeey 30 nin intaan u shaqeey 30kii nin lacagtii markii tuura la yiri ay kala dhunteen 30 nin aan u shaqeey isma aan u raacay cunaan karinay saa waxay sameeyeen waaba iga dhunteen 5 nin bas aan ka helay ma raashinka iska bixiya ma ilmihan u tagaa ma ciyaalkiyaan geesta waayaa wareer aduu gaalkacyo lacagta aan dhismaha ka shaqeey igala carreen haddiin xisaab gaalkacyo dhan waa gedi marka lacagtaas noo soo celi ilaahay khayr ku siiyo lacagtaas noo soo celi Soomaaliya insha Allah هذا ما سنت barnaamijkeennii aan markaasi aan ku dhex maray magaalada isla markaana aan ugu kurgalaya hadba bulshada iyo dareenkeeda intaas ayaan ku hakinaya tan iyo intaan ku kulmi doono muuqaal mid kan lamid waxaan kaga tagay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu idinkuna waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo birtaan oo aad subscribe gareysaan